حاجي محمد جبوتاوي عرالي ayaa maanta cisbitaalka weyn ee magaalada Laascaanood ku wareejiyay qalab laba container ah oo wakiil uga ahaa shirkadda Haas Petroleum waxaana qalabkaasi kala wareegay mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka iyo sidoo kale cisbitaalka degmada Laascaanood ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay Xaaji Maxamed Jabutaawi oo ka warbixinaya qalabkan Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwan illa 'ala adh-dhalimin أما بعد هل كان ما توحين كورة ترنا بلغات كي هوري إيها إن إسبتال كتيب بيدو سرير لا يهي شركة دي هاس ويكسو شوابتي شركة دي هاس وكيلو هاي إمكا وكيل رسمي ميد إمكا سريرية أن ويديي ee maalintii tiibadaynu joognay aan u weydiiyay shirkadii Haaswe ka soo jawaabtay wayna keentay haddaba shirkadaas maxay keentay taas muhiim ah dadku wax way bixiyaan ficil labay ku soo jawaabtay war waxay inoo keentay alaab kabariga toos looga soo qaaday waa alaabta wada kartoonka war kartoomada soo qabo alaabta wada satellaatada ee kartoomada ee xirxiran bay noo keentay isbitaalka Urdugaan alaabtii taale weeye ee Istanbul alaabta la keenay alaabta la keenay waa alaabta morka shirkadu dasikin noomay soo iibin isbitaalyo Yurub oo la bedelayna alaab inoogama soo qaadin 200 sarrood baan ku xisannay 200 sarroodna shirkadu way noo keentay maalintan weydiinayay ee isbitaalkan ka ballan qaaday lamaan hadli shirkadda markaan ballan qaaday ka bacdi baan la hadlay shirkadii Haaswe ka soo jawaabtay arrintii alaab sikana iyo isbitaal Yurub oo la xaraasay inaguma keenin kambanigii baa toos inooga soo iibis wa shirkadu waxtar laga sugumaysay aynu ducayno shirkadeena aynu ducayno oo qolada tiibayda ducadeedu wad maqlayseen waanigii yaabayda ku war ducada badan haduubinina be alaabtoona sii deyn ducadu si kale ugu tagaysaa niyadahan bay ugu tagaysaa annaga buu ducaynadii kuwa tiibada qabay ku tiifsanaya iska daaya kuwa buka ku tiifsanaya waanu idinka gudoonay shirkadda Haas baan leenahay ayaguna halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka oo mahad celiyay Xaaji Maxamed Jabutaawi iyo sidoo kale shirkadda Haas Petroleum Maxamed Xaaji Jabutaawi oo horey noogu ballan qaaday inuu tiibada iyo custaalka kalaba u keenayo agab sariir ah wuxuu noo sheegay in sariirihii 200 sariirood iyo go'yaashii iyo firaashyadii iyo barkimooyinkiiba la socdaan sariirtii oo isku wada dhan waxaan leenahay shirkadda Haas kulley waxa wakiil u ah Cabdirasaaq Ataash isagana oo u jooga Somaliland aad buu mahadsan yahay waan u mahad celinaynaa jasaakum Allah khayr waad ka soo jawaabteen baahi weyn baan u qabnay haddaan custaalka nahay inkastoo tiibadu aad u baahi badnaa waan nagu filan yahay baan u malaynayaa haddii aan laydon 200 sariirood inaan tiibaydana iyo muxuu ahay waadhka wixii jilicsanba aan ku bedeli doono waxaan halka maanta nasiib u leh oo nala jooga agaasimihii custaalka tiibada guud haysta Dr. Bashiir maanta isagoo goob jooga sariiraha loo keenay تعالى بمهد دمانتيد iskale waxaanu halkan u joognaa waa cisbitaalkii degmada Laascaanood qaybta TBda waxaanu runtii halkan kula wareegaynaa agab sariir ah oo ay bixisay shirkadda Haas waxa runtii agabkan nagu wareejiyay Xaaji Maxamed Jabutaawi oo isagana runtii hadaanu nahay wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sool iyo dhammaan bulshada gobolka Sool ba naga mudan mahadnaq iyo ammaan ba naga mudan
sariirahanina inay yimaadaan cisbitaalka baahidaa qofkii nala arkay ah ilaa iyo saaka uu nagu wareejinayana dabagalkooda iyo joogtayntooda waday waxaan leeyahay xaajiga cimriga iyo caafimaadka iyo awlaad iyo hantidaba Allah u barakeeyo runtii dad badan oo wax haysta baa dadkeena ku jira laakiin dadka dareemi karaya baahida dadka nugul dadka TB-da inoo jiifa waa dad nugul waa in dad baahidooda hoos loo eego waa dad mudan waa dad baahi gaar ah qaba waxaan leeyahay xaajigu runtii garashada dheer ee uu dadka dheer yahay tanina ma ahati ugu horeysay oo uu keenay baahiya fara badan oo aan hore uga jawaabnay buu ahaa shakhsigii ugu horeeyay ee reer Laascaanood ee ka soo jawaaba waqtiyadii xanuunada laga baqayay koronaha baahiyihii ugu horeeyay aan bulshada ka codsanay wuxuu ahaa shakhsigii ugu horeeyay oo ka soo jawaaba gaarigii gargaarka degdega ee ambalaasta ballanqaadkii ugu horeeyay shakhsigii ballan qaaday buu ahaa qofkii ugu horeeyay ee ka soo jawaabana isagu ahaa reer Laascaanood iyo reer Sool iyo dhammaan dadka geeyigan degan ba waxaan leenahay ku dayashu mudan yahay in loo duceeyo mudan yahay waxaan rabnaa iyagana inaanu mahad naqno kambaniga Jabuutaawi mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan rabnaa kambaniga isaguna bixiyay agabkan maanta uu ka keenay Maxamed Jabuutaawi waa kambaniga Haas oo uu wakiilu yahay Somaliland Cabdisaaq Taash waxa kaloo isna aan mahad celiyo oo la kaashaday agaasimaha cusbitalka waxa mahad gaar ah u celinayaa Jabuutaawi Maxamed Jabuutaawi oo ah ninkii message-kana gudbiyay imikana lagu soo hagaajiyay marka laga yimaado shirkadda Haas oo iyadu aan cusbital Laascaanood oo kale aan ku koobnayn dalka oo dhan wax badan gaarsiisay iyada gaar baan ugu mahad celinayaa labada aragteen waa laba cusub oo bacdi ku xidhan